marka ugu horeysa waxaa la isweydiin karaa su-aasha ah waa maxay sirdoon? jawaabta su-aashaasi waxay tahay sirdoonku waa xog ku saabsan meesha waddan dani ka gasho. sida keliya ee lagu helaana waa in shaqaale u gaar ah loo tababaraa, dhaqaalena loo qoondeeyaa, dabadeed la sameeyaa waax u gaar ah oo ka madax bannaan tartanka siyaasadda dalkaas. waa in sharci gooni ah lagu dhisaa oo dad aaminsan jiritaanka dalka ay hoggaanka waaxdaasi qabtaan. taariikhda markaanu dib ugu noqonno dagaalkii koowaad ee adduunka kadib ayaa dadkii yuhuudda ahaa ee deganaa falastiin ogaadeen in aad looga baahan yahay dad ka shaqeeya howlaha sirdoonka, maadaama ay carabtu ku hareereysan tahay. dowladda ingiriiska oo markaa xukumaysay ayay siyaasadeedu ahayd in aanay qolona wax yeelin. shacbiga yuhuudda oo uu hogaaminayo nin la oran jiray ben gurion ayaa waxay iska ururiyeen lacag si ay u laaluushaan askarta carabta, waxayna markii dambe ogaadeen inay dani ugu jirto inay wadaan dadaalka urursiga wixii macluumaad ah ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa carabta iyo falalka ay ku guda jiraan inuu yahay mid u fiican ka hortagga dhibka u imaan kara. sideedaba war la-aantu waxay dal ku keentaa khasaare xoog leh. tan ugu xumi waa iyadoo si degdeg ah oo aan digniin lahayn dagaal loogu qaado oo ciidanka oo aan dhug lahayn ama warmoog ah la weeraro. tusaale ahaan, dalka Mareykanku waxay wax ka barteen dagaalkii dhinaca cirka ee Pearl Harbor ee Jabaanku kusoo qaaday dagaalkii labaad ee adduunka bishii Diseembar sanadkii 1941, waxaana ay kaliftay in dib loo qiimeeyo habka basaasnimada iyo sirdoonka dalka oo lagu eedeeyey inay ku fashilmeen hawshoodii. sidoo kale dalka Jarmalka ayay mucjiso ku noqotay dagaalkii Normandy ee D-Day loo yaqaan ee xeebaha Faransiiska lagu weeraray, isagoo ku hungoobay war sir ah oo been ah oo uu moodayay inuu dagaalku ka dhacayo dhinaca gobolka Pas-de-Calais bishii Juun 6 sanadkii 1944. taas oo ciidamadii huwanta ahaa ee uu Mareykanku hogaaminayay dhirbaaxo lixaad leh ugu geysteen isballaarintii Jarmalka. dhinaca kalena waxauu sidoo kale dalka Israa'iil caloolxumo ka qaaday filan waagii dagaalkii bishii Oktoobar sanadkii 1973 markii ay Masar iyo Suuriya ku qaadeen dagaal lama filaan ah, waxayna arrintaasi mucjiso ku noqotay hay-adaha sirdoonka ee Israa'iil ee militariga iyo kuwa Mossad oo aan wax digniin ah ka bixin in Israa'iil uu dagaal kusoo fool leeyahay. faa'iidada dhinaca militariga ka sokow, sirdoonka iyo warhayntu waxay kaliftaa inay xogta habboon ee madaxda lasoo gaarsiiyaa ka caawiso wixii go-aan ah ee ku saabsan horumarka dalka. dhinaca dhaqaalaha, tusaale ahaan markii wadamada carabtu ka xireen saliidda shidaalka ee ay dalalka reer galbeedku ku nool yihiin ayaa iyana lama filaan ku noqotay dalka Mareykanka, waxaana ay noqotay mid curyaamisa dhaqaalaha iyadoo safaf loo galay xarumaha shidaalka, taasoo bedeshay habka sirdoonka, waxaana keentay in la abuuro qaybo CIA-da u qaabilsan basaasidda arrimaha dhaqaalaha iyo tiknoolajiyada. haddaba muhiimadda sirta ama helidda xogta cadowgaagu waxa uu damacsan yahay ama saaxiibkaagu waxa uu ku fikirayo ama ku kacayaa waxay tahay mid aad muhiim ugu ah jiritaanka dal, waxaana ay tahay laan muhiim ah oo u baahan in si taxadar leh loo abuuro. sidee buu u shaqeeyaa sirdoonku? dalalka reer galbeedku waxay aaminsan yihiin in war la-aan aanad ogeyn cidda aad la macaamilaysaa, siday u fikirayaan, u shaqeeyaan, u wada dhaqmaan, ula dhaqmaan dadka kale, ama iyagu u nool yihiin ay tahay mid keeni karta go-aan qaadasho burbur keeni kara. waxay aad ugu dadaalaan sidii ay ururin lahaayeen macluumaad ku saabsan madaxda kale adduunka jira, ama madaxweyne ha ahaado ama xafiis hoose ha hayee
cid kasta oo iyagu ay dan ama arani ka geli karto. Waxay isku dayaan inay la socdaan tusaale ahaan habka madaxweyne dal u shaqeeyo, siduu u nool yahay, waxa uu jecel yahay raac ahaan, cidda u dhow ee uu la hadlo ama u furfurmo, cidda xafiiskiisa u galgalka badan, iyo siday u nool yihiin meelaha uu tago ama dariiqa uu shaqada u tago. Tusaalaha sare wuxuu ku tusayaa siday culuumta qof kasta oo ay la kulmayaan u ururiyaan hay'adaha sirdoonka ee dalalka horey u maray. Hay'adaha sirdoonka wadamada waaweyn waxay leeyihiin xafiis u qaabilsan sida loo darso hab nololeedka iyo dabeecadaha dadka ay markaa rabaan inay wax ka ogaadaan, oo loo yaqaan Behavior Analysis Department. Waxaana aad caan ugu ah hay'adaha wardoonka sirta ee Mossad ee dalka Israa'iil leedahay, oo ku jira kuwa adduunka ugu muhiimsan habkay u shaqeeyaan. Waxaa kaloo xafiiskan ay u badan yihiin aqoon-yahaniinta culuumta maskaxda psychologistka, iyadoo ay habka sirta loo doonaa ay badan tahay ayaa waxaa isweydiin leh, maxaynu ku qeexi karnaa sirdoonku? Sirdoonku ama sirtu waa macluumaad ama war u gaar ah shaqsi, koox ama dal oo aan loogu talagelin in cid intaa ka baxsan lala wadaago sababo badan daraaddeed, taasoo haddii qof, koox ama dal aan loogu talagelin ay helaan dhibaato, dib u dhac ama hadaf qalooc u keeni kara cidda sirta iskale.